raalliga ahaada oo ayagu ay lifekii aan ku jiray marka qodobada lagu heshiiyey marka qodobadaasaa kamid ah oo ah mataqaanaa in shirkadda Ethiopia ay badda Soomaaliya la wareegto oo amniga badda Soomaaliya ay mataqaanaa ilaaliso maraakiib ay samaystay Ethiopia maraakiibtaas ayaa badda Soomaaliya ka yaalaaba doonto ka kalluumaysan doonto ciidamada ugu xooga badan ee mariniska mataqaanaa Ethiopia la yiraahdo ay samaystay geeska Afrika ciidanka ugu xooga badan soo rasuulahu u sheegay wargeysida caalamka shirkadda logistic shirkadda la yiraahdo mataqaanaa Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise ayaa mataqaanaa badaha Soomaaliya iyo dekedaha amnigooda la wareegi doonto shirkadaas ayaa ka shaqeynayso imaaraadka ayaa 3 bilyan oo dollar ku bixiyay oo shir ku yihiin Ethiopia sidaas ay hawsha u soconaysaa mataqaanaa kuban waxaa laga ballan qaaday in madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay hoos imaanayaan oo ay mataqaanaa waxba qaban doonin dekedaha mataqaanaa Ethiopia waxay la wareegi doontaa dekedaha Boosaaso Berbera Hobyo iyo Baraawe dawladda farmaajo waxay 100% ku yeelan doontaa dekeda Berbera ay ku yeelan doontaa share ah ra'iisul wasaaraha farmaajo Xasan Cali Khayre mataqaanaa wuxuu awood toos u yeelanayaa mataqaanaa in la siiyo ciidamo 10,000 oo liyu boolis isugu jiro federaal oo isaga mataqaanaa howlgallo qaas u fuliyo 1,500 oo kamid ah madaxtooyada ay mataqaanaa amnigooda la wareegi doonaan fila Soomaaliya oo muqdisho soo geli doonaan marka sidaa weeye mataqaanaa heshiiska rasmiga ah ee maanta mataqaanaa kala saxiixday waxa kaloo meesha yaalo waxa weeye dacwadii badda Soomaaliya oo 6 sano dib loo dhigay laakiin taas inaan brito doodna ka qabto mataqaanaa kala soo hadlo ayaan isku dayayaa maadaama ra'iisul wasaare farmaajo uu imaanayo mataqaanaa meesha ila Oslo imaanayo mid dhinac kalena waxa iga update ah qabanqaabo xoogan ayaa ka socota mataqaanaa qaaradda Yurub oo farmaajo safarkiisa looga soo horjeedo 25 oo ku imaanaya Brussels lawyer ayaa la hayirgeliyay sida hore ku sheegay oo rabo in farmaajo ay dacwad ku ogaan qolooyinka sirdoonka Burjumna qaarkood waxay maanta aan ka soo xigtay oo mataqaanaa ay si hoos igu sheegeen in maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu laga yaabo in uu isaga iyo shirka dib loo dhigo xaalad amni awgeed maadaama la ogaaday in dhaqaaqyo xooggan ay socdaan sidoo kale waxa laga yaabaa madaxweynuhu inuu baaqdo oo ka baaqdo shirka mataqaanaa Brussels uusan imaanin maadaama uu ogaaday ama xaqiiqsaday in lawyer waaweyn oo midowga Yurub kuwa human rights iyo criminal mataqaanaa lawyers ka ay kiiskiisa hadda ay gudagaleen marka meeshii inuu xaliya ka baaqsada laga yaabaa laakiin lama hubo waa sugaynaa ilaa official ay ka noqoto arrintaas si hordhacan baa ku sheegay waayahay waa mahadsantihiin marka qadka telefoonka ayaan idin fasaxayaa mataqaanaa si mataqaanaa aad fikradihiin uga cabirtaan oo mataqaanaa qof kasta fikirkiisa oo uga cabiro Mozambique ayaa igu soo horeeya inkastoo qof qadka igu jiro hello what's up hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضد تعال سقط هلو قال واحد انا قاعد كنت انا كان رالي قلنا هادي اد وان كلا سودا دار على سو اد بان ku salaamaadigi dadku dhageysanaya horta hadalada waxyaabo badan ayaa iiga baxay hadda heshiiska maanta aniga laftii waa maqlay waxa kale dheeraad ah inaad arab ku dhufatay dad hay'ado Soomaali inay dadka iibinayo oo loo soo maray lambarkooga ah dhammaantoodna aad moodo dad macruuf inay yihiin وايه oo Soomaali oo taqaan وايه sida hadda safiirka Ethiopia Maxamed Fadhiya ra'iisul wasaaraha dalka iyo xildhibaan kamid ah golaha shacabka oo xildhibaan aan ah وايه marka hadalkaas markaan fiiriyay aniga waxay dadku qaarkood waxay u qaadan karaan in la dhihi karo warinkan daar cala sooba wuxuu hay'aytay diirada saaraya cid gaar ah ama qolo gooniya وايه marka waxaan ognahay Ethiopia inay samaystay hay'ado maraakiib badeed iyo ciidan badeed inay samaysatay waan ognahay meesha ay ka howlgeli doonaan ilaa hadda meeshii Ethiopia geeska Afrika Soomaaliya kaliya bad ka malaan sidii Eritrea
buuti baale dowlado badan oo dariskeenna ha badale waaya ilaa haddana anagu dowladda Soomaaliya kama hayno xay qolaaniin Ethiopia okay dooda un hore u gal mabduuc oo aseed u aragtaa un mataqaanaa qodobada aan ka hadlay safarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ku tagay Muqdisho u aragtaa un ku soo koob maadaama qadka uu iga buuxo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Muqdisho safarka uu ku tagay waxaan arkaa safaradii hore safar lamida oo madaxweynayaasha Muqdisho madaxweynayaashu noogu imaan jireen waa mahadsan tahay hallow qofka xiga hallow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ayta iska dami live iska dami dooda hore u galda ay maqlayso dadka ugu badan waayay hallow haye dooda hore u gal السلام عليكم داعي وقت أنا waa kaa qaaday salaamaha noo dambaysa dooda hore u gal waqtiga ugu yar dadka ugu badan داعي وكسر لي يعني جلد haye sad u aragtaa maanta Ethiopia inay badda Soomaaliya la wareegto kadib la wareegto sad u aragtaa داعي وحنا أركا إذا حكينا على كارنا أو كتاب سمبران كات يعيد كلامنا أو جورناليستين هنا annaga markaan xaqiiqo helno ayaan arrintan fikirka ka dhiiban karnaa laakiin hadda waxa aan ka hadlaynaa waa wax hordhaca aniga waxaan u arkaa safarka ra'iisul wasaaruhu ku yimid Soomaaliya inay tahay arrin waxa weeye fiican oo dalka horumarkiisa iyo maaragtay looga hadlayo xaaladaha hore oo jiri jirayna sawir fiican ka bixinaysa waxaa jiri jirtay madaxda inay tagto Ethiopia oo ay ku kala yaaci jirtay laakiin hadda waxaa Ethiopiankii ayay madaxdooda ay gaartay imaanayaan waxaa arrimaha shirkan looga hadlay maantana waxna waa ay leeyihiin waxna shacabku waa ay maqlayaan waxaa wixii xog ah oo dambana waxbaan ka dhihi doonaa haddii waa mahadsantahay aad u mahadsantahay hallow qofka xiga taliyaha soo hadlaya hallow waayahay hore ku soco dooda ku soco dooda waan ku socdaa waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha inuu dalka Ethiopia aad ugu soo horjeeda iyo badii Soomaaliya waaya programyo badan oo arkaya wax wanaagsan oo maanta ummadda loo qabta ma aha ma garad waayahay haye waa mahadsantahay hallow qofka xiga hallow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة دائرات بكم سلام يا برنامج كانوا ولا سعودي سلام الله waxaan doonaynaa aragtida ka dhiibto runtii haddaan ka bilaabo safarkii maanta ee ku tagay Abiy Ahmed runtii waxaa muuqata Soomaalinimadii iyo magacii Soomaaliya Ethiopia cadow ku ah inay qoladan la baxday nabad iyo nolol ay meesha ka saareen Soomaaliyana ay ka dhigeen maamul goboleed amba kilal ka tirsan Soomaaliya sida darkiisay ee loo soo dhaweeyay si loo qaaday iyo protocol xumadii Soomaaliya ceebtii u geysteen maamulka hadda jira runtii waa maalin madow bay ka dhigan tahay maanta waaya protocol xumada aragta maxaa kamid ahaa protocol xumada waxaa kamid ahaa goorta diyaaraddu timi madaxweyne Farmaajo iyo koox isdabayaacayo qaab daraa ah kadibna waxa soo degay askar iyo saraakiil ka tirsan Ethiopia-anka waxay jeekimeen amba eegan airport-ka qaabka wuxuu socdaan way kala habeeyeen kadib baa laga furay albaabka ra'iisul wasaaruhu soo dego runtii meel walba ku jirtaa website-yadii warbaahinta caalamiga maanta waxa ka dhacday ceeb qaran waxa kamid ahayd waxa jirta madaxda caalamku markay qudbadeynayaan waxa la dhigaa laba qaybood ayaa loo kala dhigaa sidii muqdisholaan Xasan Sheekh iyo madaxweynaha Erdogan laba microphone bay ku kala hadlaan hal microphone bay wadaagayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu runtii waa ceeb way dhaaftay waxa fadeexadii adduunka ugu weyneed baa oo runtii sharaf dhac ku ahayd ceebta labaad ee wadanka haysta waxa kamid ahayd dalku waa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya amba dalkii Soomaaliya idaarada madaxtooyada waxa ku qornaan nabad iyo nolol anu waxaan fahmi waayay dalkii nabad iyo nolol baa loo bedelay dalku waa Soomaaliya marka ceeb way dhaaftay waa dhaqan xumo iyo fusuq baa meesha ka dhacay maanta waa maasantahay qad kale ogolaya adiga mudan hallow qofka ka soo Talyaaniga hallow
هي ضد هروسه طلياني هو صاحب ما قال وهي ضد كسو اسكدم يعني لا في أنا أركا ضدي أن أركا كل إمام الحمام ماشي كجرت الرسول الساري عندما دولة إثيوبيا إن يعني هشيس يعني أمة الصومالية أن أقل من ماركينو إن لوجو يا ما قرت وهي marka wallahi aad baa ugu xumaay aniga Soomaali in hadda xilliga la kala jarjaro badeedii la iibsado yani dawlad meesha ma jirto umada Soomaaliya oo waa ka soo wada herjeeda ma garat waayay marka waa dawlad saati qabiil loo soo galiyo ma garata kabtan waayay marka wallahi annaga hadalnay qurba joogta Soomaaliyeed dadkii wadanka joogay aad bay yani maalin walba loo gumaadaa guriyoodii baa xisbiyadii lagu laaynayaa waxa waaye waxa socdo waa wax yani Soomaaliya aan u qalmeenin yani ma arkino nimanka dawladda barnaamij la baxay waxa waaye niman wadankii burburinaya ma garat waayay marka wallahi ina umada Soomaaliyeed ayada isku tashato ayada istaagto ayada horumarkeeda iyo danaheeda ay ka shaqaysato waa maasantahay sidii qolada la iskaga horwareejin lahay waayay marka wax yani maanta Soomaaliya yani nin Ethiopian xamar ka soo degay intii yareedo hartay Soomaaliya inuu yani kala qaybsado oo kala saxsaxeeda badeeda dhulkeeda waa wax la sugayo ma garatay in yani wax walba ay u dhameeyaan waayay warka ugu badan hadda dadku uma taqaanaa waa maqaysaan ay dadku hadal hayaan waxa weeye inay Soomaaliya u muuqato in ma taqaanaa ay noqotay kilinkii ma taqaanaa Ethiopia kilinkii lixaad ee Ethiopia noqotay saas u muuqata hello بالمغشى si fiican ku maqlaa leo Soomaali waa la siray waana ninkaanuna jaajuus la soo diro wahay oo hadda ilaahay ku roon yahay rabo Soomaali inuu majaxaabiyo oo gado marka Soomaali ay tasta meel walba joogtaan waayay waayay adigu soo aragtaa arinta safarka maanta war safarka waxa ka daran waxyaalaha la saxiixay inaad dadkiinaan dadka masuulka ka ah waxyaalaha la saxiixay inaad dadka aad u sharaxdaan aan muhiim ma garad waxyaalaha la saxiixay inaad dadka u sharaxdaan adinka la idiga rabaa ma garad waayay dadkii media masuulka ka ahay waa adinka waa arinta waa inaad dadka u sharaxdaan oo aad dadka detail u bixisaan 16 walxada la saxiixay ninkan tadaba wadana soo dirsataa meesha keentay oo lacag ku bixisay investigation kiina journalist investigation sameeyaatiin dad dhalinyaro cilmi labaatiin dhalinyaro wax ku walbaatiin in arinta ka qabataan oo wax faantaan oo dadka wax u keentaan oo document u keentaan baa wanaagsan ay shaqadiina qabsataan wadankan maanta ee Ethiopia ay ciidanka badda Navy samaysato midda labaadna baddiina la dejiyo baddiina la galo waa arinta meesha taalo ma garat waa maasantahay waayay waa maasantahay ad kala galaya waa maasantahay hello 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 qofka jooga Noor wadaa maqlis iska dami live kayga iska dami ee barnaamijka soo gudagal hello 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 hay dooda hore u gal dooda hore waa u galaya marka waxaan rabaa inaan ka hadlo yani heshiiskii maanta la galay ee dawladdan isku sheegay farmaajo hogaamiyaha gashay waaya soo ku soo qodob waxaa ku jira oo dekedaha ka hadlaya Ethiopia deged ma laha marka waa in la isweydiiyo qodobada yani ka hadlaya dekedaha maxaa keenay Soomaalina yani wax fahanto Ethiopia waa ognahay waa tan diriskeena laakiin deked aanan lahayn marka heshiiska waxaa ku jira horumarinta ganacsiga iyo isdhexgalka dadka bedelaha iyo wadooyinka marka heshiiska lixaad waa qaybta lixaad waa fiiri kartid heshiiska maanta waa qoraya haye waa qodobka lixaad ka hadlaya dekadaha waaya marka waxay tihiin mudan Ethiopia oo dhahday yani waxaa sameysanayaa maraakiib dagaal iyo ciidamada badda waxaa keenay in dekada laga hadlo marka dekada lagu soo qaaday heshiiska lagu soo diray dekada maadaama Ethiopia dekad lahayn waaya marka waxa yani Soomaalida ka qaldan marka aad ka hadlayso qodobada yani dad qalad ku arkay laakiin waxa jiro mutaqaana waxyaabo isdiidayo
marka anu waxaan qabaa waddanka madaxweyne waxaa ka nin Mareykan mid Soomaaliya madaxweyne marka ah waaye marka Soomaaliya isku tashataa fiican sida la galaayana yani dib loo fiiriyo waxaan ka warsugeynaa baarlamaankii lala wareegay ee la qabsaday waaye ka warsugeynaa sidaan wuxuu ku yiraahdaa marka waa kaasa intaas waa aan raayigay waan ku salaama daahir arki salaamullah hello عليكم السلام عدك على كل وقت ما قشيد مياه عدك على كل وقت عدك على شيء عادي وسقف عادي وهذا الأوان بقن هذا بقن يصير نكبح برنامجك هذا ما قشا ما بقن هي داير على سوار على عدك هو ذا غير حني هي كسع برنامج هذا عدك ولا نظيف برنامجك هذا عندك حركة سوق البرنامج كوكور إير كلا سيد u aragtaa heshiiska maanta ay ka saxiixday ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo xamar tagay iyo mataqaana madaxweynaha mataqaana farmaajo ma doonayno mana arki karo anu waxaan u arkaa arrin qalad aan u arkaa سيد u aragtaa Itoobiya in dekedaha Soomaaliya lagu wareejiyo badda Soomaaliya geeri baan ka xigaa saaxiib waayo waa maasan tahay ana adduunka laga waayo waa maasan tahay halow qofka xiga هلو الله يقوى marka fiirsadka Soomaaliya soo hadlaya isku si ay u hadlayaan inta badan fikirkooda isku si u cabirayaan oo ah inay ka soo horjeedaan in Itoobiya maanta dekedaheena lagu wareejiyo baahida keentay lama wax fahmi kara ma aha halow هلو السلام عليكم داك عليكم السلام ضد هروقل waxaa ka soo hadlaya magaalada Muqdisho daan horta waxaa sharafta noo in madaxweynaha dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliya uu albaabka u istaago in prime minister ka Itoobiya waaye marka jamhuuriyaddii iyo madaxbannaanidii halkaas ku dhamaatay Itoobiya anaga wax nagu malaan badeena anaga askar looma saxiixi karo marka Soomaaliya waxay noqotay kalinkii maxaasida hore u sheegtay ma aha Soomaaliya wadan madax banaan waayahay shacabka Soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa inay kacdoon sameeyaan oo ay raggaan meesha tuugada waa tuugo wadanka waxay xasan sheekh ayaa ka daran xasan sheekh wuxuu nin Soomaaliya dhisay oo wuxuu ka dhigay siyaasadii gudaha siyaasadii dibadda u dhisay Soomaaliya laakiin raggan waxay ku fashilmeen siyaasadii dibadda waayahay marka madaxweynaha waxaa laga rabaa shaqada maanta uu qabtay waxaa iska lahaa wasiirka arrimaha dibadda iska lahaa asaga markuu tago Itoobiya waxaa loo soo diraa wasiiro sida sharafta iyo karaamada looga dilo asaga waa lagu dilo laakiin ninkan nin caadi ma ninkan waa nin waalad ninkan nin caadi ma daa waa ku salaama insha Allah salaamullah waa maalashan shacabka soo hadlaya waxay ka midaysan yihiin fikirkan mataqaanaa ah in ninkan xanuunsanayo kale uu yahay ama nin u shaqeynaya shisheeye aan laakiin xoogaalnimadeeda gumaysiga ugu badan ee Soomaaliya lagu wareegay waxa ka shaqeynaya waa ninka ra'iisul wasaaraha oo farmaajo ah ninka aaminsan Itoobiyaanimada oo aaminsan Itoobiya dalka u qabanayso klinik lixad ka dhigaysana waa Xasan halow السلام عليكم داير على سو وعليكم السلام ورحمة برنامج قيبة كسو غاري marka waa booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo heshiiska dhigaya in Itoobiya lagu wareejiyo dekedaha iyo badda Soomaaliya anigu qodobkan baan rabaa inaan ka hadlo qodobkaas waxa weeye dadka farmaajo taageera ee munaafiqiinta ee shalay berbera ka hadlayay maanta sawir nooc kala bay soo galayeen oo way taageersan yihiin marka ma Itoobiya diidan yihiin dadka mowqifkooda rabaa inaan ogaado ma garad dadkaas Itoobiya waxay lahayn sidee soo gashaa berbera maanta waxay ku soo dadka Itoobiya ma diidanay berbera diidan yihiin ana ku sheegay dadkaas shalay waxay lahaayeen Itoobiya ma arki karno maxay u soo gashay Soomaaliya maxay berbera u timid maanta farmaajo afar dekadood shalay berbera mid kaliya yahay afar ay siiyeen bari bulshada dhan waxay soo galeen waa ganacsiga muxuu yahay inda ka dada dhanaasisa hadday ganacsigiin may kala degaan may mataqaanaa alaabo soo degsadeen hadday ganacsi tahay ciidamada dhisteen bay Itoobiya qorshe dheer bay wataan ciidamada dhisteen ciidamada Afrika xagga badda ugu xoog badan baan dhisanaynaa bay dheen ma garad waayahay
haddi marka muwaadinimadii shalay baan doonaya muwaadinimadii iyo qayladii iyo baroortii shalay berbera laga qaylinayo in maanta laga qayliyaan rabaa oo weliba afarade berbera shalay mid keliya yahay maya hadda baroortaas waxay ahayd dad qabiilahoo farmaajo ku qabiilahoo qabiilnimo u nacab reer berberay ahayd taas horena u sheeg haddana ku cilna taasi wax weyn ma ahayn qof wax gartaana ma fahmi karay oo waxaa weeye markii etoobiyaanku iyaga la socdaanna waa muwaadiniin dad ganacsiyo wanaagsan markii qolo kale etoobiyaanku ay xiriirayatana waa qarnimadii la burburiyo weyn fahamta haddaba waddanka dad baa ka mas-uula 4 dekadood suurtagal maaha etoobiya bad ma laha etoobiya inay tiraa ciidan baan dhisanana iyo inay 4 dekadood qaadato weliba 2 saacadood heshiis lagu saxeexo weli adduunka lama arag ma garanaysa adduunka weligeedba kama dhicinba waayahay wax loo yeedhiyo farmaajo waa loo yeedhiy waayahay marka waa ku salaamaya saaxiib salaamullah hadalkaas hadal nin weyn waaye shalay kubi lahaa berbere etoobiya la wareegtay ka qaylinayay waxayna maanta waxay soo qorayaan waa ganacsi in 4 dekadood lagu wareejiyo marka shalay maxay ahayd maantana maxay tahay hallow عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. هي ظاهر ضد وحي كسب سنتها ربعنا دي. ضد وحي كسب سنتها هاي سيدو أركتا عند كذي بلد صومالي توبي الجوريجي. حماضة وواحد حماضة عاد بنا نقحمة. وياه. صوماليا hadana badda laga sugayaan bal aan ogeyn ba hadii ba Ethiopia lagu wareejiyay marka waxaan ka sugayno waxa dawlad ma ahan haye waa mahadsan tahay qad kale galiya hallow qofka qadka soo galay hallow kor u hadal waxba ka maqlo afar dekadood ee Soomaaliyeed in la yiraahdo annagu ma maamulo karna Ethiopia noo maamulayso Ethiopia lagu wareejiyo waxay ka dhigan tahay Soomaaliya laga dhigayo oo la damacsan yahay in noqoto kilinka lixaad Ethiopia in ciidamada Ethiopia ay samaysatay oo leeyahay geeska Afrika ugu awood badan yihiin ay badda Soomaaliya la wareegaan amaankeeduna waxay ka dhigan tahay in Ethiopia ay bad heshay Soomaaliya kilinka lixaad ay noqoto hallow waxba kaama maqlo codkaaga waxba ka maqlo kor soo hadal ها ضد هروقل يا وانكوهم بالهيم يا واياي انت سيدا وخذ الشبكة الصومالي اللي وتعرفهم بالهينا انت عدت اوعي بي وما سنتاي هالو قفك حيا هالو السلام عليكم ولا عليكم السلام ورحمة ولا تعني حروب سيكل الدود إنا أنا كجرير إنه حبشة أو دجالي عدوني من الحسو إنه سيدي إيشة وكلات سيدي بخور كي وكلاتو إنه أو البار كتبوس نبي أنا عملايو أنا كإيشة نرباح كل النوع واياي وأنا كحنا هاي تنهد مدام إلهي متكل إنه بدلو أو ضاعده إن شاء الله وحنا وإمانا يعني سيدي دبو تاريخ الله مهمان وحول بني إن شاء الله إنك كبسنا رجين دونادو إلهي رياضة ولا المعان وأنا كما سنتهاي مادام إيش تاينين ودني وفكرتي إذا ما أنت ماشان إيش يصير واحد بدنا كل سو حريري مركب محاكرة فيفا دار على سو عدد وهجبه هرن أصيبت وأنا كطاير سنة ولا كنا وما سنتهاي هالو قفك سو هلا يا مقدشو ها واياي الجماعة وين أتماشى الكور وأنا قوام بلينا بقولك يبغون وايوه ما سنتاي ودار على سوار دار على سوق هذا الله يفتكركم كل سنة وكم مغليا الله يفتح وقت يا بربي وايوه ما سنتاي هالو كينيا
هلو كيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. هلو. والله بالله wax laga xumaado waaye. هاي. Hello. waa ku maqlayaa haye hore ku soco. haye ku soco hadda ku soco mid live kaga jira ku soco haye. Hello. ha hadda ku soco live ku soco haye. horta daahiro waxa weeye wadankeena cadowga Soomaaliya maadaama hadda lagu wareejinayo meelihii ugu muhiimsanaa lagu wareejiyay sida aan maqlayno waa wax laga xumaado. waayahay. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya meel kasta ay joogaan taas ha ka dhiidiyaan hana ka kacaan. waayahay. hana ka mudaharaadaan taas. waayahay waa mahadsantahay. halow qofka xiga halow. halo daahir salaamullah. salaamullah cala qalub. waxaan ku yidhi doonta haddaan hore u galo run ahaantii aniga horta maanta maalin madow ayay u tahay ummadda Soomaaliyeed inkasta oo ummad Soomaaliyeed oo kale oo xeebta ku nool oo Jabuuti la yiraahdo ay xoogaa yara neefsan karaan macnaha haddii hoos u soo daadego waxaan uga jeedo Ethiopia waxa qorshe ugu jirto qarniga ku yeelto rubaca hore qarniga ku yeelto labaatanaad inay dekad hesho. waayahay. dekadii Jabuuti waa ku fashilmeen. waayahay. way suurtageli weyday. waayahay. xagga Soomaaliya hadda u soo digarogteen. waayahay. Ethiopia siyaasad isku dheelitiran bay aad ay u dheelaysaa. waayahay. wajiga hore waxay adduunyada iyo Jabuuti iyo Soomaaliyaba xoogaa ay tustay in ay heli karto dekad oo ay ka maarsanto Jabuuti iyo dhulka Soomaaliyeed oo ay u noqon karto Ethiopia waa kuwii ku dhawaaqay inay dib heshiisyadii lagu saxiixday 2000 ay dib u soo celinayaan waa kii bardhaweeyay taasi dhacday. hay waayahay. marka dardalgelin ayaa hawlihii la gashay ayadoo taasi jirto hadda waa kan ninkani meesha yimid Soomaaliya kolka Soomaaliya waa Plan B Ethiopia Plan B bay u haysataa Eritrea Jabuuti waa ka soo quusatay. waayahay maga Plan B ku jirtaa. Eritrea waa Plan B Plan A kolka hore waxay ahayd Jabuuti waa u suurtageli weyday hadda Soomaaliya ayaa u soo noqotay. waayahay. waxayna ku suurtagashay wax kale ma ahayn waxa weeyin xiriirkii dowladda federaalka iyo madaxda Jabuuti ka dhex jiray ma fiicno. waayahay. madaxda dowladda federaalka ah Jabuuti badanka waa ku noqon jireen siyaasadda badanka Ethiopia marka laga hadlayo xagga Jabuuti waa la sii mari jiray. waayahay. nimankan meesha hadda haysto saaxiibada ah ee ku heshiiyo waxay ku heshiiyeen ma ogiye ummadda dhabarka u sii jeediyey Jabuuti dhabarka u sii jeediyeen. waayahay. khasaarihii laga dhaxlana waa ka maanta waa bilow. waayahay. Ethiopia anagu daraato Soomaaliya waa la isku dayay Jabuuti inay Soomaaliya indhaha Ethiopia ka soo jeediso way isku dayday markii DP World ay la saxeexatay Somaliland waa Jabuuti Ethiopia soo noqo ku tiri halka ku soo noqo halkana sheerkaasi inay dekada Jabuuti sheer laga siiyay. waayahay. Ethiopia taas waa ku qalbi weeyay. waayahay. Ismaaciil Umar dib ugu hadlay madaxdii federaalka arrinkii uu sheegay Somaliland tan arrinkayga halkan hay joogto runtii waxuu ka fahmi waayay. waayahay. wajiga waxuu kala kulmay nimanka meesha jooga ee madaxda ah. waayahay. isku tashado dhahay. waayahay. isku tashada waa dhahay laakiin shacab isku tashada muu horanay nimanka qowleysitada meesha joogto isku tashada dhahay. waayahay. natiijadiina waxa maanta dhacay ee socdo ee imaan doona waay. waayahay. marka saaxiibo waxa kaliya oo aan leeyahay waa u tacsiyanaya shacabka Soomaaliyeed dad cid u maqan horta ma jirto ceel u maqan iminka ceel waa u qodnaa jiro Jabuuti bay ahayd ceelku u qodnaa jirina farmaajo iyo xasan khayr way soo duugeen. waayahay. marka saaxiibo haddii wax laga bedeli waayo shacabka reer Jabuuti reer Soomaaliya ay ummadani ka mudaharaadi weydo ay caalamka tusin weydo waxa Ethiopia ay wadato ma hayo wadan balaadikad ah oo ciidamaha intaas lacag inuu sameesto
qorshihiisa ay ugu jirto aniga ma hayi ilaa hadda waayahay waa wax ku cusub oo ku ugub ah siyaasadda caalamka waayahay taasna kuma dhiiran jirin awal Ethiopia laakiin maanta inay ku dhiiraan arrimahaas wax fudeediyay xataa khayr iyo farmaajo waayahay marka shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya walaalahayow garabkayga tihiin waan naqana Ethiopia sida loola dheelo haddii aad wax maqlaysaan waar Ismaaciil Cumar tolkadayda beel caalamaad wax idin maqarto nin baa la dheelo Ismaaciil Cumar asaga xabashi yaqaan asaga xabashi ah asaga sida loola waxeeyay yaqaan shacabka reer Djibouti shacabka Soomaaliyeed oo ku leexda weydiista ninka meesha joogo garab inuu xoogaa Ethiopia ka qabto waayahay meesha kaliya ee maanta Ethiopia ay doonto kaliya biyo ka cabto waa Djibouti waayahay shacabka Djibouti haddii shacabka Soomaaliyeed haddii ay Djibouti maanta garab weydiistaan ay madaxweynaha garab weydiistaan oo arrinka soo fargali la dhaho Ismaaciil Cumar wax badan ayuu ka bedeli karaa waayo waa maasantahay adaa mudadaay waayahay Mozambique iminka u baaqaya halo qofka Mozambique soo hadlaya Mozambique wuu ka baxay qadka halo عليكم السلام ورحمة. برادر وسلامة ما ترتوح أكو فرحسناي إن بدن بدي جتين سومالي لام بتشعل إثيوبيا لكن مقدشو أي نقطة كل الكلمة سوماليات بنسودوين عم فان. وايه. ومحك. مرة بدن هذه لفت هذا كوريا ها وحكى مغلق في سومالي لا وإثيوبيا تشعلين لكن ما مقدشة إثيوبيا لقى تشعليها هاي وبيا لقول إنجنيا ودكديها بالكذا. مقدشة لقى ما جعل. هم يلا ويلا جوا. أنا ولي قد قميص الشقينا إثيوبيا متيجي دون تاركها بلنقاده لكن وحلاقيها إثيوبيا متقنا إني متقنا بربري بوصه شو حلاقيها لكن وحنكو حقيقة إثيوبيا هي اللي مدونته براوي من هي اللي مدونته هبيو مقدشنا لكن جو إثيوبيا ما جعلوا حبات يقولي وصار لكن وحوي وحاجة الحصة على غير لاوي فرماجة جعل وأنا أقعد دونته جوابت القصة صباح أقعد دونته نالي قبطاس دولدن سيدنimada iyo sarriirta waa la socdaa inay fashil tahay hase yeeshee maamul darrada ka jirta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxay Ethiopia u sahlaysaa inay si fudud uga faa'iideystaan khayraadka iyo dekedaha iyo dhulka dowladda Soomaaliland oo iyadu administration iyo jaarnimo Ethiopia kula macaamilaysa heshiisa caalamiga Imaaraadka Ethiopia la gashay boosaas waa maamul goboleed oo jirteen la yiraahdo ka tirsan ila Soomaaliya oo farmaajo xukumo marka aad baan uga xumay inay maanta Soomaaliya Ethiopia ka mid noqotay Soomaaliland guul bay u tahay waxaad ku ay jirteen idinka maanta dhakada idinka fush maya hadalkaas waxa yartay inuu ku socdo kuwii dhihi jiray berbera Ethiopia maxaa loo siiyo meelaha ka caytami jiray maanta waxay ku jawaabayaan in mataqaan laga warsugo inkastoo qaarkood ay hadda maanta qiil ka raadinayaan waa ganacsi oo shalay Ethiopia markay berbera galeysay maxay aad mabooba ee soo ganacsi ma ahayn kooxay taalka darnaa ee nabad iyo nolol nagu weerariyay boqolka doolar la siin jiray caloosho shaqadeyaasha namada bila sharciga kaamo jira maartay sida gentleman iyo kan kale boldri kooxdii qaaqlayaasheen ma garanaysaa Yurub bila sharciga ku ah maanta waxa noo sheegaan dawladii sariirtii seedinimada ee farmaajo iyo khayrlaaw fashil bay ku dhamaatay khayrlaaw wuxuu imanayaa Oslo wuxuu imanayaa dadka Soomaaliyeed si dib loogu celin lahaa Soomaaliya nabad waaye Muqdisho waa degtay caynka waa gobolada dhexmar marka Soomaaliya meel kasta joogtaa lagu mudaharaado khayrlaaw markuu yimaado Norway iyo Scandinavianka farmaajana markuu xaggan kala yimaado dhinac walba nimanka maartay lagu mudaharaado Soomaaliya way gabaan midaan ku sheegaya farmaajo intuu yimaado burjimka isagoona eeboobin ugu yaraan ka laaba maayo laakiin ani muuji Norway ma qaahay Norway inay baqaan in kala muuji Norway xaaladeedu way kacsan tahay Norway waad ogtahay in dadka lagu dhibaateeyo waad ogtahay carruur badan la qaatay sharciyadii dadka in lagu dhibaateeyo waad ogtahay Soomaalida dhan waa barakacayaal arrintii oo bilaabay ninka la yiraahdo ninkii ahaa gudoomiyaha hay'adda socdaalka Xasan Al-Khayrayn adeerkii sheekadu bilaabay gaafo general gaafo sheekadu bilaabay wiil dalkii dadku waa nabad boqolaalka qof ee Soomaalida sharciga dib looga laabtay تيلي هذا في صعد هذا رقم ناكم بصحيح يعني إن دبلو عليو مقدشوا عنا بديناي قبل هذا حواد دقيقين وضن كواربر باكتشرا سومالي دب أسي كلا غرواي مركا سومالي وحلي ملك استشوكتا كوتشي هذا لبضانين وانا بنو قردويسا شرفتي دالك يددك يدين تا انت بوحي كودن قدو
soomaaliya may gaadhin dhowr iyo 20 sano burburka maanta iyo wiigagan iyo bilahan iyo sanadadan u dambeysay heerkii gaadhay diblomaasiyadda iyo horumarka dalku wuxuu noqday dal la yiraahdo nabar iyo naxdin amba nabad iyo nolol madaxtooyada Soomaaliya maanta ku qoran taasoo aad iyo aad loogu yaxiixo Soomaaliya oo adduunka taariikh weyn ku leh oo caalami ah inay maanta labada nin isku seedigay halka gaarsiiyaan Soomaaliya waxa leeyahay damiirka iyo caqliga yaana idinkaga ciyaarnay meel ugu soo jeesta daayir adigana wax ku leeyahay ambaliyo shaqada dadka waa siin waa maasanta hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة هيا هروب قالوا كبار يعني كعد كروقان عاروا مركان هدي أنا فكر كذي تهرت آيات أنا بحنا ما أنت إن شرفتين الصومالي نهالكاس مجانين رئيس الوزراء إن ما أنت مدحوينها شيك فرماجة مدحويننا بدي كذي فرينا حد إن ما أنت هرجاز أراني أساس نشر الدلان أنا تندي كذي إن كذا ولا هذا ما علينا هذا ما تعملنا يا ما ده برامج هذا أنا بيجي نسيت وحياة بدون رونا عن نشر كذي شغلة هي إله كل خبط عدد وجنا إله يجيبيه آمين يا رب أيوة ما صنته وما غليسان ذلك الشعب الصومالي ما أنت مش مري موجود ده هالو ها هيا الدولة كنت لايفة وتفعل هيا هروق قالك فكرة كأنا عبر waxaan la yaabay anigu ninkan khayran leeyahay marba ka sidii uu film matalayo madaxweynihii koonfurta Kuuriya uu ka soo arkay uu matalayo qofkan waa qof Soomaali qof Soomaali madaxweyne noqon karo ma aad ka meesh joogan labada iyo nolol sheegtaa waxa Kim Jong Un amal oo fiiriyo oo ka daawaday caalamka TV-do sidii Kim Jong Un u dhaqmaya sidaas uu dhaqmaya waa ciyaal waa qof yaro maalaya aniyaba يا وقف يروح عياله ما يعني ما ظهر وقف دله جامي كرو نقول كرنين مسؤولة عروتنا مركو ساق قايس كأوين بلاوا يعني أوين سوريا وحوي إنه خلقت تشتغل النظر ين حدين وح يسوى دامج شرطه ويا هو مع سنتاي ويا هالو ساوث أفريقيا هالو ساوث أفريقيا هالو هيا هروقل ضده وفي عنا ضده هروقل warna ضده أنا wax badan ka geysama laakiin waxaan ku sheegayaa waxay taabataan ها ayaan taaro dhan dhibaatooyinka iyo problemka lagu hayay dadka Muqdisho ku nool Soomaaliyeed anagu waxaan aragnaa hadana dhalinyarada Soomaaliyeed in Maxamed Abdullahi Farmaajo maashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu imaanayo wadanka oo madu dhibaatay ويا بكذا هاي بدأ الصومالي إن هو اللي جيتوا بيربكوا وما هيسو arrintaas oo dhan aad baan uga xunahay laakiin waxa weeye arta mid ugu weyn waxay tahay dekadahaasi waxaas oo dhan waa la soconaa qofkaas wuxuu go'ay kasoo hadlayay South Africa هاي الصومالي واد مقليسان halka wax marayaan kil xaadan maanta noqonay inkastoo ilaahay u dhihin inkastoo ogaadeen rag xaniib badan iyo dumar fiican oo firfircoon ay joogan dalka dibaddu ay joogan inkastoo Soomaali aqaano aysan yeelaynin ma taqaanaa sidii hadda wax u rabaan nimankan aysan aqbal doonin haddana ma taqaanaa waxa ay muuqato in ma taqaanaa maanta Muqdisho ay ceeb weyn ka dhacday halo عليكم السلام ورحمة ها لايف تكون الشعب كانوا واكم مقلة ضد هروقل ضد لايف تكون ضد لايف وهي هاي قف عليك الشخصي إذا هاي وهاي قف كاس صالح قلي ضد marka xaalad Soomaaliya halkaas ay maraysaa halo haday maqays dooda hore u gal assalaamu
عليكم ورحمة الله وبركاته. داهر والسلام عليكم. سلام الله على قلوب. horta waa mahadsan tahay doodaada barnaamijkaagana aadan u dhagaysanayay waa waxyaabaha aan la murugeysnay weliba waan ku fikirayay inaad soo geli doonto waa ku mahadsan tahay qalbigeygii horta waa ii rumoobay waayahay horta daahirow sadar muuqda su-aalka dhan walaal bad Soomaaliyeed weliba waxaa la sheegay 4 dekedood 3 saac gudahood lagu saxiixay weli ma dhicin waayahay markii wax la saxiixayo daahir waxaan ognahay waxaan nahay dad wax bartay oo adduunka maray waxaan ognahay markii wax la saxiixayo in baarlamaan la soo marsiiyo in laga fariisto in badan laga fikiro in wixii annaga dan noogu jirto kaliya la saxiixi karo laakiin annaga dekedaheena in Ethiopian la siiyo dan nooguma jirto awalka hore waxaan ka shakisnaay Ethiopia oo maxay ahayd sheegtay in ay samaysanayso ciidamada badda ah ciidamo badeed kuwa ugu awoodda badan geeska Afrika waxaan isweydiiyay Ethiopia xagee badda ka keenay haddana waxaan isweydiiyay doqon jilicsani inay noo joogto oo badayna ay ku tashanayaan wallahi midda kale waxa aan islahay waliba oo aan u badinayniyo badda ay ku tashanayaan matii berbera laakiin hawsha hadda waxaa la sheegaaba inay hobyo iyo kismaayo iyo maxay ahayd tatiibo saasa ay ku jirto waayahay waa ayaan daro inteeda la eg midda kale waxaan niyada ku haynaynaa annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan niyada ku haynaynaa waligeen in xoolo ay leedahay Soomaali cidna aysan qaadan karin farmaajo hadduu rabo ha saxiixo laakiin baddi hobyo sida lagu tagi lahaa oo Ethiopia ugu soo tagi lahaa aan rabaa dad tababar ilaahay qabaan aan qabnaa annaga oo bad yaqaan oo tababarka ilaahay qabo waxaan qabnaa dadkii adduunka oo dhan u soo gurmaday burcad badeed cabsi ay ka cabsanayaan burcad badeedda Soomaalida adduunka oo dhan ay u soo gurmadayaan qabnaa oo ay waxba ka qaadi waayeen marka waxaan ku kalsoonahay wiilasha Soomaaliyeed aan ku kalsoonahay gabdhaha Soomaaliyeed aan ku kalsoonahay insha Allah biidnillaahi kariim heeriyadana waa iska qaadeynaa badeennana ama ha saxiixo farmaajo ama ha iska daayo sahal laguma qaadan doono insha Allah shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay idinma maqno farmaajo waa qaa'in shalay waxa ahaayeen ninkii xasan sheekh dhahay la lahay markii doorashadii maalintii doorashada waad xasuusataa xataa sheekh nuur baaruud gurxan wuxuu yiri hala iska dhaafo ilaahay ka cabsada lacag yaa la qaadanay wadanka loo daneeyo nimankan aniga aan ka dhashay hawiyo waa niman qalbiga ka xaaran waa niman daacada waa niman lagu baarjilicsaday shalay Ethiopian oo xasan sheekh wata waxaa caddaatay inuu xasan sheekh Ethiopian wadanin dardaaranka ugu dambeeya xasan sheekh oo dardaarmane maanta oo kale qof walba Soomaaliya wadanka yaan lagu aaminin cid walba wadanka qofka ku aaminaysiin u fiirsada si fiigiisa la soo baaro wallahi billahi talla waa laga shalaayay farmaajo heesta aad u samaysay farmaajo aad ugu maadsantahay daayro heestaasna waxaan dhihi lahaa waa la heshay habar qabal lagu sirmay waa habar qabal lagu sirmay Allah naga hor wareejiyo Allah yahay waana ku salaama walaalkay waana maadsantahay waa maadsantahay waa maqlaysaa shacabka Soomaaliyeed si isku mid ah hadlayaan si isku mid ah inay hadlayaan marka Soomaaliya yiraahdo waxaan hubaa qof kasta oo Soomaaliya waxa kalaba laga ahaaday heshiis inay mataqaana Ethiopian ku ay Soomaalida ogoleen hello live ku jirta magacaygu waa maxamed axmed ku magac dheer boos waxaan joogaa magaalada muqdisho run ahaantii maanta daahir cali show xaqiiqdii maanta aad iyo aad ayaan ugu xumaaday anigoo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed ah in marka hore wadooyinkan laga xiro marka labaadna Ethiopia aan ognahay inay tahay cadawga ugu horeeyo ee Soomaaliya leedahay haddana madaxweynihii sheeganay inuu madaxweyne yahay haddana siiyay oo la sheegay in uu saxiixay dekad iyo meel ay kala soo degaan wax walba ay u baahan yihiin run ahaantii dadkan xukuumadda sheegtay nabad iyo nolol oo farmaajo ugu horeeyo iyo qeyre way ku kashifmeen xilka ku kashifmeen haddana raggii 77kii dagaalka culusa aan la galnay ilaa hadda saraakiisha ciidankii ku naafo dagaalkaasi ee magaalada muqdisho joogaan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia faqash ku dhalay Ethiopia maanta laga soo dejiyay garoonka aadan cadde run ahaantii aad iyo aad shucuurteeda maanta ma aana dabaaldegan maanta waan caraysnaa run ahaantii kiiloomitir 4 markaan ku arkay
calamada Ethiopia xiran wallahi waa ciishooda runaantii waa dadka dama wada ciishooda kaga ma ahan in maanta calamada Ethiopia lagu xiro wadooyinka Muqdisho waxaan isleeyahay waxay foolad doontaa geeri badan bay foolanaysaa isleeyahay waa arkaynaa si wax ku dhamaadaan hadaan awood lahaan lahaa beere ama farmaajo ama Abiy Ahmed saddexdood hadaan awood u lahaan lahaa maanta ka sii lahaa maanta waa maasantahay wadada Soomaaliyeed waa maasantahay waa maqlaysaan dhalinyaradu inay leeyihiin maanta nafsiga u gooy lahayd amine kalsoonida loo hayay haleey amaanado la amine kalsoonida loo hayay haleey amaanado halkii baad nala lunto hawshii lagu egmaday hubaasi waad gebto ankii baad hudee halow qof ka soo hadlaya Faransiiska عليكم السلام ضد درس أتهوجل. وني وما أنت تعزيه نوت عليه نكان فرماج الله هو يدي اسمع اسكاله هوبيات أصير صحيح. ما يا هوبي لك ما عم سيق به هوبي يبرا وطمع لك ما عم سيق به كور بوساسي بربرو. والله صومالي ما أنت وحوي هات فرماج ما ذا حوح كل سأله وسالم فان أودله. وياه. وابل الدلا ما ذا تويدا لو ده الدلا لكن إلهي أسود الدجيم فان. وياه. Ethiopia nasaasiga cilnayna anaka inoo taalaad waayay marka xaashaga dadka hubiya khatarstaano ha ku tala galaano jihaada soo dhow ha ku tala galaano faanti waayay marka saaxiib waa ku salaama boqol daar calaso in la sameeyo waa daar calaso guuna ku rajaan oo waxa la yaabanaa daar calaso 8 bari gudaheeda ku mucaaraday farmaajo wallahi wax weyn ogeeniyo inuu yahay nin liito oo basaasinta hoosta ku wataan ogaade hadaan ogahay markii hore Allah iga cafiyo wali kalma dhaheen ifkan Ethiopia oo nacba daar calaso 8 bari soo ku mucaaraday dawladda ma waaya waa maasantahay halow nala lunto hawshii lagu igmaday hubaasi waad gebto ammaankii baad hudee qaba lagu sirmo halgamayaashii dalkiyo hogkii shacabka dishay habar qaba lagu sirmo wala habar qaba lagu sirmaya lagu sirmo halgamayaashii dalkiyo hankii shacabka dishay habar qaba lagu sirmo bulshada wali hadal hayaan halaagii soo bayo dhagax dhigtee halkaad qalbi dhagax dhigtee Hello. Aleykum salaam. Way. Hello. Doodaad ku jirtaa ku soco. barnaamijku aad buu fiican yahay doodana way fiican tahay doodan toos u galaya way ila quman tahay aniga in Ethiopia inta la keeno Soomaaliya ay timaado dekedda Soomaalida ka faa'iideyso maxay tawaalo sababtu waxay tahay Ethiopia waa dal koraya oo dal dhaqaalihiisu kor u kacayo sida daraadeed waxa way ka faa'iideysanayaan badaha Soomaalida iyagoo badaha Soomaalida u maraya badaha Soomaalida hadii ay u maraan waxa Soomaaliya ku jirta faa'iido badan baa ugu jirta waayo shaqaale laga helayaa dekedaha la dhisayaa dhulka la maalgelinayaa ka faa'iideysiga Ethiopia ka faa'iideysanayso Soomaaliduna waa ay ka faa'iideysanayso waxaan deganahay
waddanka Switzerland bad ma laha waxay ka faa'iideystaan oo ay adduunyada uga faa'iideystaan dekedaha Talyaaniga iyo Jarmalka iyo Faransiiska maya laakiin waayahay dekedaha Talyaaniga Switzerland lagu wareejiyey waa lagu wareejiyey oo haddii aad eegto laba dekedood oo waaweyn investmentka ugu badan waxa bixiya maamulkeygana leh waddanka Switzerland baa leh Faransiiska sidoo kale deked ayay ku leeyihiin oo iyagu iskoodu maamulaan Faransiisku waxaa kaliya ka eegaan cashuurta ka soo galaysa waddanka wayna ka faa'iideystaan nidaamkaas ayayna uga faa'iideystaan Soomaaliya haddii Ethiopia ay keento Soomaaliya keento dekedaha la dhiso shaqaale laga helo cashuur badan laga qaado dan badan baa inaga inoogu jirta oo walaalow sidee Ethiopia oo dagaal intaas naga dhaxeeyay mataqaan loogu aamini karaa dekedaheena iyo badeena inay ciidan inta la galaan waxa lagu aamini karaa Soomaaliya waa waddan jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay aqoonsan tahay Ethiopia intay soo gasho Soomaaliya ma qabsan karto oo adduunyada waxyaabihii lagu heshiiyey Geneva Convention-ka waxa kamid ahaa waddanna inaan waddanka xagee ku dhalatay adoo xagee ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay oo ka soo jeeda magaalada Boorama ku dhashay oo ka soo jeeda gobolkaas Awdal oo barra ku dhalatay oo barre miya may waxaan ahay reer Boorama marka Ethiopia nimada aaminsan tahay miya ما أمسني إثيوبيا ووطن غونيا ووطن صوماليا إثيوبيا وكلام ده حبناني شركة جنيفا كونفنشن كواحد كتير وطننا إن أنا وطن كلا قبسن كده صوماليا حققتها سياسة ديدا إثيوبيا ما قبسن كده صوماليا لكن إذا كده على السريع وصوماليا لا قالوا بفايدته أنا بدنا بوضع في السوق ليا عشورها عشورة بدنا ما لقى قاعد واي هو ما صدق bulshada wali hadal hayaan halaagii soobayo halkaad qalbi dhagax dhigtee waxaan la hilmaami karin bulshada wali hadal hayaan halaagii soobayo halkaad qalbi dhagax dhigtee halkaad qalbi dhagax dhigtee halkaad qalbi dhagax dhigtee halkaad qalbi dhagax dhigtee قلبي داغح دفتي halkaad qalbi dhagax dhigtee hello السلام عليكم عليكم السلام ضد ربنا نشوف كلام ما قرأت هي هرو صعب معاملة أنا نقصد هاي بقشة بدأ الصومالي اللي هو رجيتو بيصير تاي دكريه doodu hadda dhanka adiga aragtay kama arko waa ra'yi duwanahay dadka ka ra'yi duwana waqti ma hadda waqti siinaysa dooda hore u galaya dooda hore u gal waqti xaqa u leedahay ku soo dhaw marka waqti uu gaabta waan ku taxtaa sida uu arko waaye doodan hore u galo hadda doodan hore u gala daahir wax la diibo oo dekada ma aragna ma faa waaye waa alko u dhigay shakhsiyadaada laakiin heshiiska ku jirta qodobka lixaad ku jirta heshiiska maya laakiin ha inkiin heshiiska maya inaad shacabku masjid galaysan ma jirta heshiiska maanta la siixday afar dekadood ma ku qoran tahay mise kuma qoran in la isku iskaashi horumarineed dekada ayaa ku qoran heshiiska in la wareejiyo kuma qoran daahir masa dadka waxaa ugu wartaa u sheeg waayahay waayahay waxaan rabnaa marka waxaanu waxna waa shakhsiyaad waa daahir way tagayaan adigu waxaa rabtaa wax kasta oo dowladdu ay tallaabo ay qaado waxa u taagan tahay inaad samayso daahirow intaan kaa arko dowlad kasta oo dalka soo marto si xasan sheekh iyo tan adigu marka qofku inuu ra'yi duunaado waa la yaqaanaa laakiin maanta berri shalay goornee daahiro lagu aamina dowlad kasta oo dalkan aniga taas waa shakhsiyadeyda laakiin waxaan ku sheegay aniga dhageyso waxaan ku sheegay doodaada waxay tahay mashruuc ama adiga wada aan qofka hawada doodaada waxay tahay dood ka soo horjeedo horumarka Soomaaliyeed waxaan ku weydiinaa walaalow adigu habar cayniya ka tahay ii sheeg habar cayniya ka tahay habar cayna Soomaaliyanka hadan ku sheegaa ma faham habar caynimadu ma diidayso in qofka ra'yigiisa ku tisada hatta hadii aan habar cayna ah may anu lahjadaha ma yaqaano oo qabiilada Soomaaliyeed kala garanayaan lahay ii sheeg ummadda Soomaaliyeed oo wada maqlayso anigii adigaba si saraaxa aan u hadalno ku wareegsan habar ayna maata adigu maya su'aasha aan ku weydiiyay maya laba tuuray aniga reerka kama dhalan daahir qofka
soomaaliya cirka madhan sidii ilaahay adiga dadkaaga dhiga ayuu anigana dad iga dhiga xataa intaas haddii aan ahay wax eeba kuma jabo laakiin waxaan rabaa in dad soomaaliya annagu waxaan aragnay waxa weeye mursado rag haliyeeyaha had ka soo baxaya maya anagu laakiin waxaan aragnay waxa weeye mursaduhu rag haliyeeyaha alwadhiigley ka mid yahay ayaa ka soo baxay iyo rag badan oo gobonnimo doona cabdullaahi yuusuf cabdiqaasim sheekh shariif xasan sheekh tan dowlad soomaaliyeed oo wanaageeda sheegto ummad u sheeg maanta ku fiiri noloshaba looma samayna inaan nacamleen noqdo anigu noloshayda awooyaashay nacamleyaal ma ahayn anigu nacamleen ma ihi anigu waxaan ahay critico qori ma qaato waxaan sameeyaa waxa dhaliishahaan tilmaamaa waana favoritkeyga waana shaqadayda taas inaan ku nacamleeyana anigu uma samaystay inaan laaluush qaatay kuwa lacagaha la siiyey ee markii lacag la siiyey iska aamusay inaan noqona anigu uma samaysni anigu waxaan aaminsanahay adduunyada waxaa laga qaadayaa wax yaroo la cuno iyo dhar yaroo la xirto waxa kale waa maala yacni intaan alxamdulilah waa shaqaystaa waa helaa marka waxaan raba su-aashaydii igama jawaab habar cayniyaad ka tahay habar cayni qolada ka tahay sheeg tanna mabduucayga ma ahe waxay ka hadlaysaa mabduuci waxa weeye seed u aragtaa dekedaha waxaan u joognaa muddo 12 sano ku dhow adigoo madaxweynaha kasta waddanka soo maray wasaaradda soo mara caynaayo tan hadda waxaa ka hadlaysa mabduuci ma aha adna gobolka banaadir soo mara caynaayo fiiri dowladnimada soomaali hortaagan 12 sano u taagana daahir ma fa fiiri waxa aad ka hadlaysa mabduuca maaha mabduucan ka hadlayna seed u aragtaa Ethiopia dekedaha lagu wareejiyey iyo mataqaanaa ciidanka badda Soomaaliya ee mataqaanaa ay sameysteen ay badda Soomaaliya ku qabsaneen mabduucaas weeye laakiin aniga nacamleen noqohay ugu qabsanin mabduucan ha ka bixin haddii kale uurgaalo qolada ka tahay ii sheeg habar cayni inaad tawa ku fahmin waxaan ka ahay indhayaraan ka ahay waxaan ka ahaa sacada ka indhayaraan ka habar cayno haddaa soo suuri maya waa ku fahmay marka waa maasanta qad kale aan gelinahay waaye hallo hallo السلام عليكم وعليكم السلام ضد هروقل ما شاء الله والله في عنا الحمد لله هاي ضد هروقل سيدو أركتا إثيوبيا إنت كديه بد صومالي الوليجي وقعوما أدمر وحما والله ما قرتي واي هاي كم التاي ربي وحواي محوها قردامة سجلين كا إثيوبيا إن نسيد البرقلين ما قرتي واي هاي waddankiina waxaa taladiisii dadkaas baa hadda lagu wareejinayaa sida muuqato mar haddii ilihii dhaqaalihii waddankii in dad boqol milyan muxuu ahaa dekedihii waddanka u baahnaa in lagu wareejiyo waaya muxuu ahaa farmaajona waxa waaye ka cabsado runtii waxa waaye waxay ka mid tahay waxyaabaha in muxuu ahaay waxyaabihii loo xigmaday inuu ummadda uga baxay ballanqaadka uu suubiyey waaya waana ka xuma arrinka واي ما صدق قد كان قال لي هلا وقف حاجه كسو هلا نروي وعليكم السلام ورحمه عقبه السومالي انا كنت عايز كسر هذه القاعده موضوع ما انا السومالي انا ما هلا يسدوا ارتا اذا كده اثيوبيا اذا كده صومالي اثيوبيا نورجي جمهورية كنت عايز معنا كتاك درنا مقدسه وجامعه انفورماتيه خير الله كان صومالي عبودي صومالي لانه هو شارمنا يدوني كل شيء وما صدق هلو السلام عليكم وعليكم السلام عيد مبارك waxa iso waxa ku jira dood life in Ethiopia lagu wareejiyay dekedii Soomaaliya afar dekedood iyo badda Soomaaliya in Ethiopia lagu wareejiyay maadaama nin muhiim ah u tahay doorkan ina ka hadasho maanta muhiim ay tahay shacabka ma u sheegaa magacaaga waayahay fasaxdo oo u sheeg qofka tahay si aad bal maanta mabduuca muhiim u yahay aad uga hadasho shacabka Soomaaliya oo la hadasho mabduuca waxa weeye si maanta ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu tagay meesha la yiraahdo wuxuu tagay xamar waxa loo saxiixay afar dekedood in Ethiopia ay la wareegto afar dekedood in Ethiopia la wareegto iyo waxa loo saxiixay in ciidan 15 kuna badda Soomaaliya ay la wareegaan oo shirkad loo sameeyay marka maadaama aan naga taqaan Ethiopia waxa rabnaa mabduucaas maanta inaan shacabka u sheego magacaaga iyo qofka tahay teetalkaaga dadkina aan qadka ama taqaanaa maadaama intaasoo kuna qof ay ka qayb galayaan inaan ma taqaanaa u sharaxdo sida u aragtaan arrintaas
waayahay qadka qofka aan la hadlaya igu jiro waxa weeye waa xogeyaha mataqaanaa xaaji maxamed cabdi yaasiin weeye ayaa qadka igu jiro waa xogeyaha OLF xogeyaha guud OLF weeye marka muhiimay ii tahay inaan maanta jaaliskaas helay oo aan qadka ku wareysanayo nasiibkaana ii saamaxay saa darteed horey u gal arrintaa bal fikirkaa maanta dadka shacabka soomaaliya kala hadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام لله والصلاة والسلام على رسول الله aad baan idin salaamayaa dhammaan inta dhegaysanaysa waxaan aad soo koobaya waa maalin bishii shawaal kowdeedii waa soomanahay shawaal baa soomanahay runtii waxyaalaha hadda la sheegaya iyo sida loo sheegaya haddii ay run noqoto waxaa weeye waa arrin runtii qaranjab ummad soomaaliyeeda bal aan qaranjab ahayne dhammaadka ummadda soomaaliyeed iyo magaca soomaaliyeeda haddii ay dhacdo dekedaha la sheegaya etoobiya in la siiyo haddii ay dhacdo ciidamada etoobiya ee badda ee la abuuraya inay mataqaanaa ay dekedaha soomaaliyeed iyo xeebta soomaaliyeed ay fadhiistaan macnaheedu waxaa keliya oos yahay etoobiya oo soomaaliya si toosa u gumaysatay etoobiya waad la socotiin horta qofka etoobiyaanka yaqaanaay saad ogtiin etoobiya ciddii hoosteeda tagta daanyeer bay ka dhigtaa daanyeerka sidiisa ayay ula macaamilantaa ma fakero isuma iman karo ma wada tashan karo mana wada hadli karo caqli iyo cilmi in meesha looma ogola marka ummadda soomaaliyeed hadday halo male maqlaya waa ku maqlayaa waa lagu maqlayaa codkaaga waa nadiif haddii ummadda soomaaliyeed maanta ay u diyaar garowday inay etoobiya gumaysigeeda hoos gasho haddee waxaa weeye hadday dhaweydinta annaga gumaysigeeda ku hoos jira oo in badanna soo gumaysatay waxaa la yidhi rahbaa la yidhi rahow biyo ka waran rahow qaarka dambe waa xun yahay marka wuxuu yidhi waa la yidhi ani qaarkayga dambe ka fiiriya biyo dalkooda faa'iidada etoobiya laga heli waxaad ka arki kartaan kuwa ay gumaysato iyo nooca ay u gashay ummadda soomaaliyeed maanta ayaa waxaa la gudboon geeri iyo nolol midkay qaadan lahayd anu wax kale kuma sifaynayo waxaan ku sifaynayaa geeri iyo nolol baaba extension dhammaad ah oo dib dambe qof soomaaliya kayaan soo arag ciidamada etoobiya dhulkiis horey bay u haysteen oo ay joogeen meel walba oo dhulka soomaaliyeeda oo ciidamka infantariga ah uu joogay waxaa ka dhinnaa oo keliya soo maahayn ciidan badda oo xagga magaaloonkii iyo xaggaa ka soo qabsada kisa wax u dhinnaa maaha intaa uma ognahay intaasaa u harsanayd dhamaystirkii weeyaan intaa uma u harsanayd wax kale maaha intaa keliya ayaa u harsanayd hadday dhacdo laa qadar allah لا قدر الله سبحانه وتعالى waayahay horta dadka Soomaaliyeed aan waaya igu jir xaaji maxamed abdi yaasin waxa weeye aan dadka u sheegay maxamed yaasin abdi wuxuu ahaa afartii qofood ee ka socotay OLF ee matelayay ama ka socday OLF ee dawladda Itoobiya kula shiray mataqaana Nairobi shirki maxaa ka soo baxay shirkii horta muxuu ku dhamaaday shirkaasi kii ugu dambeeyay buu ahaa wadahadalkii oo OLF iyo Itoobiya u socday dhammaan intuu ahaa waftigii ka qaybgelaya baan mas-uuliyiintii ku jirtay shirkii waxaa ka soo baxay inaan waxba ku heshiin weynay waxaan ku heshiin weynay ay qatalinta ogaadanya Itoobiya iyaguna af cad bay nagu yidhaahdeen ay qatalin kama hadli kartaan Itoobiya Soomaaliya ayay doonaysaa inay dhammaan gumaysato marka seebay ogaadanya ay qatalin u siinaysaa وسلام بهذا لما ضايو وايه كتردي سين idinka oo Soomaaliya oo dhan baan dabnaa qabsanay haday Soomaaliya qabsan weyno wixii yaad ka hadli kartaan ay ka talin laakiin kama ayatan ma kama hadli kartaan geeska Afrika oo dhan baan inta Soomaali ka degto inaan qabsanaan doonina Jabuutina way ku jirtaa kuwa la qabsanay hada waayahay marka shirkiina wuxuu ku dhamaaday natiijo la'aan shirkada wuxuu ku dhamaaday natiijo la'aan way
waanu sida annaguna waxaanu nidhi ka talinta iyada oon caddayn oon meel kale ma jirto iyaguna waxay dhahdeen waxaa iska ilaaw marka calaa kulli xaal shirkaas ugu burburay waana isku afgaran weyn waayahay ninkii mataqaanaa maamulayay dhulka la gumaystay Soomaali galbeed Cabdi Ilay shalay waatuu hadal dheer jeediyey oo hadal ku weeraray ra'iisul wasaaraha cusub oo leeyahay maalmihii ugu dambeeyay telefoonku ka qaban waayay Cabdi Ilay wuxuuna sheegay in xabsi la jeel ogaadeen sida xun arxanka dadka loogu dhibaateeyay inuu ka dhigayo masaajid hadalkaas sidoo mataqaanaa maadaama mas'uuliyiinta sare ee ONLF aad kamid tahay sidoo idin saameeyay hadalkaas maxaa u macnayseen waxa ilaahay abuuray ka jira ma jiro wax uu yidhina maaha kamana dhigayo waxa weeye isaga hal waxa weeye shakhsi Tigray u adeegsanayay oo ummadda Soomaaliyeed lagu bahdilayay buu ahaa marka dadku bahdilayay iyo Tigray Itoobiya oo dhan bay gumaysanayeen laftoodu ay dhibayeen marka dadkii Oromada ah ee laayay ee isaguna mataqaanaa Tigray u adeegsanayay markii ay kacaanka Oromadu dhacay ayuu qayb ka ahaa ninkani waa nin prime ministerka Oromo sida awgeed wuxuu ogyahay ninkani inuu revenge isaga ku sameynayo isaguusan meesha sii joogaynin intaasoo kaliya ka hadlaya qadiyada ummadda Soomaaliyeedna kama hadlayo wax kale ictiqaadina ma jiro marka isaga nabarka ku soo oo kaliya weeye wuxuu hadda ka hadlaya masaajidu sameyn ma jiro dadka ku xidhanaha saacadan aan kula hadlaya 20,000 iyo 15,000 baa u dhaxeeya dadka hadda saacadan xiran been buu sheegaya wuxuu sii daayay ma jiro nimanba maanta laga sii daayay sideed ah oo analafa xabsiyada Itoobiyada koreeto hadday gaariga markay dagaana dib u xiraya dadku laha waan sii daayay hore waag hore waxay ugu masaliyeen mataqaanaa meesha la yiraahdo mataqaanaa goda iyo qallafa dhexdooda ayuu kaam u sameeyay uu ku xoo kaleeto oo deena uu guriga ku dhisto oo maxaabiista lagu shaqeeyo lagu baadala marka waxa uu sheegaya waxba kama jiro telefoon uu ka qaban waayay waxa sira ma aha waxa weeye isaga ayay ku socotaa marka waa shakhsiyadiisa oo hadda kulli si dhimanaysa kaliya waa ku maqlayaa su'aasha kale rabin inaan ku weydiiyo waxa weeye 6 generaal oo Tigray ayaa ninka markii hore garab sii jirta hadda 6dii meesha waa ka baxeen oo hal nin baa ka haray shantii kale xilka waa laga qaaday maxay saameyn ku yeelan kartaa arrinta Cabdi Ilay arrintaas Cabdi Ilay waxay saameyn ku noqonaysaa waa ninkii qayrkii loo xiray oo adigu soo qoysa weeye wuxuu arkaa rag ku tirsanaa ku meesha ku hayay ku bahdilayay isagu wuxuu meesha u ahaa cash crop u ahaa oo meesha budgetka la siiyo deegaanka ayuunbuu nimankaa dib ugu celin jiray marka kuwii isaga meesha ugu dhow la fidiyay isku quudin jiray markii la rifay waxay isaga u tahay uun adigu dee way ku taallaa meesha ay mareen baad maraysaa wey saameyn badan bay ku leedahay marka isagu hadda waa naflacaari dhimashadiisuna waa u diyaar marka waxaa leeyahay ninkan waxaa laga yaabaa ma aha hadda umma Soomaaliyeed marka godob u basinaan isagu galay iyo dhibaatadeedii oo isaga hadda ku imanaysa wey marka waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa inuu jabhad sameeyo Cabdi Ilay ma laga yaabaa haddii jabhad xitaa u shaqay weyso inuu hubka iyo ciidanka ku wareejiyo ONLF oo idinla heshiiyo si sida laga yaabaa damirka iyo dadnimada hadduu leeyahay markii hore tayuusan dadkiisa saa u xasuuqeen hadduu saa u fakarayo afkaartaas iyo hamigaas iyo hankaas hadduu leeyahay waa meesha hore ka bilaabay uusan ka bilaabin mana filayo waaya Jaanis maadaama aan helay waaye aragaa tahay aan aqaano taariikhdiisa waxaa tahay nin Soomaalimada ku dhaato oo taariikh dheer oo fac weyn leh waana markaad adiga iyo cibaado iyo maday tagteen taan ku iri waa loo hubaa haddii hor fadhiyaan Xaaji Maxamed Yaasiin iyo maday iyo cibaado haddii hor fadhiyaan Itoobiyaanku inaysan dantooda shaqayn doonin oo mid Soomaaliyeed mid kale ka soo bixi doona ama loo kala tigi doono waa taan iri markaad joogteen Nairobi maxay ku dhamaan doontaa arrinta Itoobiya iyo Cabdi Ilay saadaashaada waa runtii waxa Ilay waxay ku dhamaanaysaa waa iska cadday Cabdi Ilay waxa maxkamad baa la saaraya kulli waa la eriyay isaga marka maxkamad iyo xarig buu ku dambayn doonaa waayahay
dadka waxay leeyihiin xaaji maxamed yaasiin maadaama aad heshay jaaniskaas noo weydii qadiyadii ninkii la yidhahdo qalbi dhagax rajo ma laga qabaa in la soo daayo qalbi dhagax rajo waa ka qabnaa in la soo daayo insha allah tacaala laakiin qalbi dhagax arrintiisa runtii hadda halkan waxaan rajo waa ka qabnaa cabsi badanna waa qabnaa labadu way jiraan waaya oo ah naftiisa labadu way jiraan waaya waa macsan tahay dib soo wici doonaa waayahay dooda halkay noo socon doontaa xogayaha guud ee jabhadda ONLF xaaji maxamed yaasiin cabdi oo dadka halyeeyada Soomaaliya u soo halgamay ee qarankaana kula magaca weyn ee muddo fog u soo dhabar adeegay ayuu ahaa qofka aan wareysanay waxayna yahay farxad inaan jaaniskaas ku helo maanta iyadoo doodii looga hadlayay isticmaalka gumeysiga Itoobiya ee Soomaaliya in mataqaana uu soo galay dadka nasiibkiisa ay saamaxay dooda way sii socon doontaa maalmo iyo bilooyinna waa ka doodi doonaa laakiin heestan ayaan ku siinaysan doonaa haddaba barlabaankiyo mas-uul hawshiisi gabay hamuun dalkuuma qabe hordhiga mooshigu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilgu bade hordhiga mooshigu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilgu bade hordhiga mooshigu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilgu bade waayahay waa mahadsantihiin dooda hadday ilaahay yidhaahdo brito ayay noo sii socon doontaa ilaa bishan iyo bish dambena way soconaysaa dooda ku saabsan qadiyadda Itoobiya oo ma ahan midaan maalin ay laba uga hadli doono shacabka Soomaaliyeed waa muhiim in mataqaanaa codkooda ay dhiibtaan qadiyadii bad Soomaaliya oo laga laabtana dooda Britain gudageli doona haddii la yiraahdo inta ka horeysa daar cas wuxuu leeyahay dabaysha geedaha mar inay ciyaarsiiso Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya waa leh xukuumadda Itoobiya iyo gumeysiga iyo dabadhilifyadoodana ha dhacaano assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh